dibadbaxan ayaa ahaa mid baroordiiqa oo ay maanta isugu soo baxeen dadweynaha ku nool degmada Xamarjaba waxaana dibadbaxayaashaasi ay ka baroordiiqayeen dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo dibadbaxaasna uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Xamarjaba dadka dibadbaxa sameynaya ayaa dalbanayay in hay'adaha ammaanka ay gacan adag ku qabtaan dadka dhagarqabiyaasha ee ummadda Soomaaliyeed u diidan nabadda iyo horumarka dibadbaxa baroordiiqda kadib ayaa waxa inoo suurto gashay inaan dareenkooda wax ka weydiino qaar ka mid ah dadka dibadbaxayaasha ee maanta isugu soo baxay degmada Xamarjaba waxaan ka xunnahay dilka iyo ka dhacay iyo dilka dhibaatada ka dhacaysa dalka ka dhacaysa waxaan ka codsanaynaa ciidamada Soomaaliya in ay ka hortagaan dhibaatada dhacaysa oo loo geysanayo dhalinyarada iyo madaxda iyo waxa dhan loo geysanayo madaxda waxaan ka codsanaynaa inay ciidamadu in amniga inay ka hortagaan waxa dhibaatada dhacaysa yay nagu fiirsan waxa la leynayo wiilasheedii waa niman dhagarqaabiyaal waa niman cabsi iyo filaynimo ay ka muuqato oo ayaana kaliya ku socday aan ku socon waa in sida ay wax yeelayaan waa in la yeelaa ayagana oo tilaabada qaadaan la qaado oo looga harin oo laga cabsan waxaan codsanaynaa ciidamada qalabka sida xagga amniga inay adkeeyaan maaragta ku dadaalaan hadda dadaalku waa wadaan laakiin la sii dadaalo dadaalka si adkeeyaan baan rabnaa degmo ahaan insha Allah ta'ala saasa ummadda Soomaaliyeed u sheegayna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee degmada Xamarjaba Axmed Cabdullaahi Sambo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay ujeedka dibadbaxan ay maanta u soo qaban qaabiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku mahadsan suuro galiyay in maanta halkaan shacabkii degana Xamarjaba ee hooyooyinka ugu horeeyaan in dareen Soomaalinimo ay halkaan ka muujiyaan inay gudbiyaan aragtida ay qabaan iyo waxa socda sida ay u arkaan dhacdooyinka ka socda gobolka Banaadir waxay leeyihiin bulshadaanama farxad gelinin dhacdooyinkaasna waxaan rabnaa oo aan codsanaynaa oo hay'adaha amniga ka codsanaynaa in arintaas si dhaqsiya looga hortago in ammaankii caasimadda Soomaaliya Muqdisho la adkeeyo in muxuu ahaa shakhsiyaadka raba dawladnimada iyo qarannimada dadka muxuu ahaa diidan in dawladda si gaara ay ula xisaabtanto oo maalin walba aysan dhicin waxba dhacay kiiskina waa lagu daba joogaa in arintaas si protection rasmi laga sameeyo mujtamaca meesha degan codkooda waa sidaas maamulka degmada Xamarjaba iyo bulshadeeda iyo hay'adaha amnigana waxay diyaar u yihiin mar walbaba inay ka shaqeeyaan xasiloonida guud ee caasimadda dalka gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan laamaha ammaanka ay gacan adag ka geystaan ka hortagga falalka gurcan oo ay maleegayaan dadka ka soo horjeeda nolosha midnimada nabadda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantan ay hay'adaha ammaanka u soo gudbiyaan qofka ay u arkaan inuu qatar ku yahay amniga ummadda Soomaaliyeed si looga hortago shacabka waxaan kula talin lahaa inay noqdaan indhihii hay'adaha amniga dhagihii hay'adaha amniga gacmihii hay'adaha amniga inay mar walba waxay qatar u arkaan ay sida dhaqsiyaha ugu badan ay soo wargeliyaan si looga hortago hay'adaha ammaanka waxaan ugu baaqayaa hay'adaha amniga mar walba diyaar waxay u yihiin inay dawaab degdeg ah arrimaha noocan oo kale ka bixiyaan habeen iyo maalin waxay u soo jeedaan inay xasiloonida dalka ka shaqeeyaan mar iyo laba qalad wuu dhici karaa ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa inaysan lagu soo noqon qaladkaan oo kale kooxda maleeshiyada argagixisada al-shabaab ayaa had iyo jeer dhibaatooyin u geysta dadka indhaha bulshada Soomaaliyeed isla markaana falaar argagixisnimo lagu xasuuqa shacabka Soomaaliyeed ka geysta dalka iyagoo dhiigga muslimka ay daadinayaan ay u arkaan mid alla u dhawaanshaha balse culimada islaamka ay falalkaasi xunxun ku tilmaameen mid adaabta lagu muteysanayo kana foga shariicada islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee diinteena fartay Nuur Saciid Taaliil telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho